si aad u kala ogaato Soomaali iyo Sabmaale iyo Soomaal saad u kala ogaato waxa weeye Soomaalku hal ma baa ku jirto oo Soomaal weeyo oo waa midabka Soomaal baa la yiraahdaa dadka dhaqankii ay ku dhaqnaayeen bii'aday deganaayeen wixii ay kala haysteen dadna saba ku nool baan dad Sabmaala ah bayaan dadna waxaan dad Soomaala ah oo xoolo dhaqda marka laakiin qowmiyadahan dadku waxay la mid yihiin qowmiyadaha caalamka oo qiyaas ahaan eegata sidaan hore idinku soo sheegay saddex qowmiyado saddex qof saddex farac baa caalamka oo dhan ka kooban yahay wax cusub oo Soomaali la dhaw Ilaahay uu abuuray oo Ilaahay abuuray qowmiyadaha kala ka duwan ma jiro laakiin saddexdii farac mid ka mid abaana Xaam bin Nuux Yaafis bin Nuux iyo Saam bin Nuux saddexdan mid ka mid ah baynu nahay farac kale oo ma jiri karo ma jiro marka waxaan aad ku jaha wareerteen oo aad macnaha qabiilka iyo macnaha qabiilku system noocaas oo abtirsan oo socda weeye laakiin qabyaaladan iyo waxaan kala qaybsanaanta oo dadka aad isku magaciisinaysan loo gelinayo dadkii in lagu kala fogeeyo wax kala fog baaban jirin oo caalamkii oo dhan baa waxay ka yimaadeen saddexdaas farac bay ka yimaadeen oo ilmo nabi Nuux baa caalamkan oo dhan camimay oo ku nool annaguna cid kale oo meel ka timid manihin saddexdaas baanu ka mid nahay isweydiintu laakiin waxay tahay saddexdaa keebaana ma baahi badan baan u qabnaa inaan saddexdaan kaana inaan Saam bin Nuux nahay ama inaan Xaam bin Nuux nahay ama inaan Yaafis bin Nuux nahay macnaha ma baahi baan noo haysa haddaanu isweydiino baahida noo haysa inaanu ogaano caalamkii oo dhan baaba intaa ka koobane annaga laakiin Soomaali baa la yiraahdo oo geeska Afrikaanu deganahay Soomaalinimadeena inaanu mideyno laakiin qowmiyadahan caalamka bani aadamka abuuran oo saddexda farac ka yimid baanu ka midna laakiin bi'aan deganahay dhul baanu leenahay qariirada Soomaali baa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed bi'ada ay degan tahay dadkaas baa wax isku meel oo isku dan ah qowmiyadahan saasaan qowmiyad u nahay laakiin safarac ahaan bani aadamkaanu la farac nahay oo aanu isku meel ka wada nimid fahma in la fahmo weeyo oo qaabka sidaa loo fahmo weeyo isla markaana wadaniyadaas waxa weeye qaybta wadaniyada macnaha in waxay ka mid tahay qowmiyad ahaanta wadaniyada ay ka mid tahay maxay dadkaaga iyo dalkaaga inaad jeclaato wadaniyada halkaas ay ka bilaabanaysaa sidaad ku jeclaan maxaad ku jeclaan waxaad ku jeclaan dantaa kugu qasbaysa in aad wax midaysan oo isku wada dan ah aad u wada quntaan jeclaansho waxa weeye oo qumid hal dan ah oo la wada leeyahay oo deegaankii ah deegaankii isku danbaana ma kala guuri karo inaanu midayno awoodeena oo aanu sameeyno wax dadka wax u ah dadka wax u tari kara inaanu wada samaysano baanu ku wanaagsanahay hadaanu iskala gurro macna badan ma sameynayno marka waxa weeye qaybta wadaniyada ah inay xoogahoo caata tahay oon awoodda la saarin baa meesha ka soo baxday kadibna burbur baa dhacay magacan Soomaaliga ana dib baa galay maba la isla fahminba wadaniyada lagu sheegay waxa kamid ah qowmiyad ahaantaada horta inaad jeclaato dal ahaantaada inaad jeclaato bi'adii baa isku keen qasabtayba